Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso. Kusoo dhawaaw sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood qaybteedii 9aad. qaybta 8aad sheekadu waxay inoo joogtay sidaas ayaana hadalkoodii subaxaas ku dhammaaday. qaybta 9aad waxay ku bilaabmaysaa 5 maalmood kadib ayuu waa sugo goor subax ah wuxuu aaday suuqa xoolaha asagoo dantiisu tahay inuu ka soo fiiriyo dad baadiyaha ka yimid oo uu reerihii ka waraysto. maalintaas ayayna waa sugo iyo warsame si lama filaan ah uga kulmeen suuqa xoolaha, waana maalintii dirir iyo warsame ariga iibinayeen. lagama sheekayn karo sida oo mid walba u farxay markay is arkeen. maalintaas waxay isku fureen murtidii ku gaaxatay intay kala maqnaayeen. dirir iyo waa suge ayuu warsame isbaray, kadibna waxay wadajir ugu shahdoonteen maqaayad suuqa u dhoweyd. intii ay sii socdeen waxay isku sii sheegayeen halka oo mid waliba magaalada ka joogay muddadii ay kala maqnaayeen. labada duq waxay u hadlayeen si tanaago ah oo farxad ku jirto. markaasaa qofkay ag maraanba dib u sii dhuganayay, dadka qaarna wayba ku qoslayeen. maqaayadii ayay tageen, shaah ayaana loo keenay. warsame ayaa markaas hadlay oo yidhi, waa sugow, waxaad iiga warantaa naagtii caddaanka ahayd oo wiilkaadii qabay, mase leedahay sharuudihii odayaasha Soomaaliyeed ku qiimeyn jireen naagta la guursanayo? markaasuu yidhi, naagta aad soo guursanaysid waa inay lahaataa 5 waxyaalood oo kale ah: itaalnimeed, aqbal naageed, arrin waayeel, af muslin iyo anshax culimo. waa suge ayaa markaas isagoo warsame u jawaabay yidhi, si wanaagsanna hadalkiisii u dhuuxay inta uu shaahii ka baday oo koobkii dhigay ku yidhi, wallaahi warsamow, haddii aan dembi iska dhowro, gabadhu waa qof aad u qurux iyo caqli badan, cilmiga gaaladana aad u taqaan sida la sheegay. waa sugase cilmi waa u diinta islaamka, wixii ka soo harana umaba danqado. laakiinse warsamow, ayuu yidhi, waxyaalo badan waa ka dhiman yihiin, waadna og tahay oo waxay Soomaalida ku mahmahdaa, dad macayb la'yahay lama yiraa ee macaynta ayaa la yiraa. haddaba warsamow, haddaan si tafatiran kuugu warramo waxyaalaha gabadha ka maqan, waxaan ka soo qaadi karaa bal mar waayo ma tukato, mar kale waayo ma taqaano sida bunshuruurka loo dubo. waxaa intaas ka sii daran, waxay necab tahay daacada oo sidaan iskugu celinayay kuwa wadna go'ay. haddiise aan warsamow tixgeliyey heshiiska iyo kala dambaynta iyada iyo ninkeeda, waxaanba is idhaahdaa kuwaanu waa reer jannaadkii la sheegay. markay halkaas marayso ayuu warsame mahmah gaaban ku tuurtay hadalkii oo yidhi, waa sugow, waxaa sideedaba la yidhi isqadaris qoys kuma dagaalo. warsamow waxaa hadalkii halkiisii ka qaatay waa suge, si kale kuma garatide. marmar waxaa cuntada kariya muuse, markaasaan ku xasuustaa mahmahdii ahayd, rag waxaa u wanaagsan nin tolkiisa oo nacas ah oo aan ragnimadiisa ku tijaabin, shisheeyahana u nacab ah oo ay ka baqaan, reerkiisana u naag ah oo aan danihiisa ka weynayn. warsame wuxuu aad ula yaabay markii la yidhi naagtii oo iska fadhida ayuu ninkii cuntada kariyaa. warsame waxaa maskaxdiisii hantiyey sida ay Soomaalida ragga iyo dumarka ugu qaybiso hawsha hadalka iyo hilibka. asagu wuxuuba eedda saarayaa Maariya oo ula muuqato inaysan ahayn naag gaari ah ama daacadnimo xumo ku jirto. wuxuuna u soo qaatay mahmaahdii ahayd, ilaahu 5 waad uuntay ee maxaad 5 uga dhigin? geesi waad uuntee ee maxaad bir uga dhigin? fulay waad uuntee ee maxaad baalal ugu yeelin? deeqsi waad uuntee ee maxaad maalqab uga dhigin? waqiil waad uuntee ee maxaad sumad ugu yeelin? naag xunna waad uuntee ee maxaad koor ugu xidhin? ha laga carara intaan cidba la moodin. iyadoo sheekadii isku duba dhacday ayaa dalaaliin iyo dad kaloo isdaba yaacaya maqaayadii soo galeen. markaasay odayaashii ismaqli waayeen, sheekadiina ka joogsatay. markii buuqii yaraaday ayaa waa suge oo hadalkii sii wata wuxuu yidhi, intaas waxay inoogu dhammaaday qaybtii 9aad ee sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood.